waxaana wanaagsan daawadayaal idin ahaantiin halkaani waa warbaahinta Baraawe qodobada maanta warka Baraawe news ugu doorka roon waxaa kamid ah daawadayaal taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa sheegay qalab gacanta lagu xirto lagu ogaan karo qofka xanuunka safareenka qaba wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya ayaa isaguna sheegay telefishinka qaranka Soomaaliya in laga been abuurtay dacayad been laga faafiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna amray in hay'adda caafimaadka adduunka WHO lacagta oo Mareykanku ka jarto sii jiriyay daawadayaal warkii caalamka ee gudaha Baraawe news intaas in kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan daawadayaal waa maalinimo Arbacada taariikhdu ay ku beegan tahay 15 bisha Abriil 2020 aan ku bilownay daawadayaal taliyaha ilaalada kacaanka ee Islaamiga Iran ayaa soo bandhigay qalab gacanta lagu qaato sheegaya dadka la ildaran xanuunka fayraska qalabkaas ayaa ogaanaya dadka qabo caabuqa kuna si ay isaga ilaaliyaan ilaa 100 mitir qofta ogaan karto inuu xanuunsan yahay wararkana waxaa laga helay wakaaladda wararka Tasniim soo hadlayay General Hussein Suleimani taliyaha ugu sareeya ilaalada kacaanka ee Iran wuxuu intaas ku daray inay saxan yihiin qalabkan 80% lagu kalsoon yahay inuu wax weyn ka taro caafimaadka dadweynaha Iran taliyuhu faahfaahin intaas ka dheer muusan ku sii dirin wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo sheegay inay dacayad laga faafiyay kadib markii telefishinku qaranka uu soo xaysiiyay shaqo ka banaaneed oo laba gabdhood ah taasoo oo si weyn cara uga dhalisay maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada wasiirku wuxuu sheegay in waraaqadaas uusan waxba ka ogeyn xafiiskiisana inay ka soo bixin uusan asuguba ka warhayn shaqada gabdhahaas loo baahnay laakiin faahfaahin khalada waraaqada ka soo baxday ay ku xusneed oo yiri wasiirka ayaa iska inkiray inay xafiiskiisa ka soo baxda waraaqadan iyadoo tafatirihii TV-ga qaranka loo buriyay waraaqadaas darteed madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu faray maamulkiisa inay hakiyaan dhaqaalaha la siiyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO wuxuu sheegay madaxweyne Trump inay ku guuldareysatay waajibaadkeeda asaasi ah isla markaana ay tahay in lala xisaabtamo xanuunkan dunida faraha baahan ku haya fayraska madaxweyne ayaa ku eedeeyay hay'adda qaramada midoobay inay si xun u maareysay isla markaana ay u qarisay dunida xanuun safmarayna ee dunida faraha baahan ku haya cudurka oo ka dilaacay dalka Shiinaha wuxuu sheegay inay iduna tahay in Shiinaha lala xisaabtamo Masar Trump ayaa horaantii bishan dhaleeceeyay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO asoo ku eedeeyay inay mar waliba inay Shiinaha ay u xaqliso hay'adda caafimaadka adduunka xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka jawaabay hadalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inaysan ahayn waqtiga dhaqaale waqti laga jarto hay'adda caafimaadka adduunka madaxweynaha dalkaas Mareykanka ayaa dhaqaalaha ugu badan ku bixiya WHO sanadkii la soo dhaafay lacag gaarayso 400 milyan oo dollar oo ku bixiyeen hay'adda caafimaadka adduunka WHO dalka Shiinaha ayaa sanadkii 2018-2019 lacag gaaray 86 milyan oo dollar ku bixiya isaguna WHO barteera Twitterka ku faafisay lacagtaas inay ka soo gaarto dalkaas Shiinaha hay'adda caafimaadka adduunka ayaa bishii Maarso codsatay lacag gaaraysa 675 milyan oo dollar ay gacan uga geysato xanuunkan safmaraynka ah oo waxna laga qabayo dunida ku sii faafaya daawadayaal warkii caalamka iyo gudaha warbaahinta Baraawe intaas ayuu ka egyahay dhinaca farsamada waxaan noo fadhay injineer Saki faafinta warka waa xaqiina
anigu cabdiraxmaan warkayaan ila socodsiinayay sidaas iyo nabaadiino daawadayaal.